sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa sheegay in ujeeddada ay iiraan ugu soo riday gantaalada saldhigyada maraykanka ee ciraaq ku yaalla ay ahayd inay ciidun ku khaarajiyaan askarta halkaasi ku sugnayd halka uu hore maamulka donald trump sheegay inay iiraan si ulakac ah aanay cidna wax u yeelin oo ay ujeeddadeedu ahayd baalaxooftayn sarkaalkaasi ayaa yidhi markaan eega khibradda aan u leeyahay gantaalada xerada ciidamada halka ay gantaaladu ku soo dhaceen aad ayay ugu dhoweyd bakharada ay rasaasta iyo hubku yaallaan ujeeddada iiraanna waxay ahayd inay waxdisho khasaarena gaadhsiisa xerada iyo gaadiidka ay diyaaraduhu ku jiraan ee yaallaa sarkaalkan oo la yidhahda masar mulla ayaa sheegay inay badbaadiyeen ciidamada maraykanka iyo ciraaqiyiintaba qalabka ka diga weerarada iyo nidaamka isdifaaca hore dowladda maraykanka ayaa qiimeyn ay ku samaysay weerarkii iiraan ku sheegtay inaanay iiraan doonayn inay weerarkoodu cidi ku dhimato iyagoo bay yidhahdeen ka cabsi qaba argoosashada maraykanka miller waxa uu isna sheegay inaan iminka la qiyaasi karin mar kale ay iiraan weeraro kale soo qaadi doonto xogayaha difaaca ee maraykanka mark esper ayaa xaqiijiyey inay iiraan soo gantay 16 gantaal 11 ka mid ahina ay ku dhaceen xerada al asad halka midna uu ku dhacay meel ka baxsan saldhigga Erbil 4 gantaalla ay hawada ku burbureen toddobaadkan xiisadda u dhaxaysa maraykanka iyo iiraan ayaa waxay ahayd mid sarraysa jimcihii ayaa maraykanku duqeyn ku dilay jenaraal qaasim suleymaani oo ciidanka xoogga dalka iiraan ka tirsanaa iiraan ayaa iyaduna talaadadii gantaala la dhacday saldhigyo ciidanku maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq inkasta oo wax khasaare ahi aanu dhicin intaas kadib madaxda labada dhinacba hadal dabacsan ayay ku hadlayeen haddaba arrintaasi ma muujinaysaa in dagaal aanay doonaynin falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay mustafa maxamuud cabdilaahi al khaliili oo siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ka dhiga jaamacadda new generation ee magaalada hargeysa intaanan falanqayntaba gelin tallaabooyinka ay qaadayaan ba ayna tusaya inay labaduba diyaar u ahayn inay dagaal qaadaan labada dhinacba because marka la eego dal kasta iyo qarnigan lagu jiro inay suuragal ahayn maadaamay hubab waaweynna haystaan inay dagaal toos u qaadaan amba ay labaduba si toosa isku duuqeeyaan oo markaa iiraan waxaan u malaynayaa tallaabada maadaama sheegtay inay tay tallaabada kaga eg tahay inay suuragal ahayn inay dagaal daba qaado maadaama cadowgeedu uu ku fara badan yahay gobolka israa'iil ay joogto sacuudigu joogo iyo dalalkii kaleba ay wada joogaan markaa ma awoodi karaysa inay dagaal toosa la gasho maraykanka laftiisuna isagoo eegaya danaha bariga dhexe suuragal maaha isaguna inuu dagaal toosa uu ku qaado iiraan laakiin in xaalad diblomaasiyad lagu dabaalaa laga yaabaa kolley waa lasoo kala dhex geli doonaa kolley insha allahu tacaala markaa suuragal maaha waktigan iminka taagan in dagaal fool labadooda ma awoodaan mana jecla trump wuxuu dhowr jeer sheegay in iiraan uu tallaabo military ka qaadayo haddii ay far u dhaqaajiso danaha maraykanka dad badani waxay filayeen in maraykanku uu isna duqayn doono iiraan balse taasi ma dhicin maxaa bedelay ayay kula tahay mowqifkii trump iyo maraykanka waxaa bedelay tallaabada iiraan qaaday oo noqday midaan ku kalifayn maraykanku inuu tallaabo askariya oo tallaabo ciidan uu ka qaado dalka iiraan waxaa yeelay iiraan dowladda maraykanka waxay filaysay say u hadlayeen madaxda ugu sarraysa dalka iiraan in tallaabo militariyo adag ay ka qaadi karaan xarumaha ciidamada maraykanka ee markaa allahuma salli calaa axad bariga dhexa laakiin maadaama iiraan ayna tallaabadii saxda ahayd ayna qaadin oo misaaliskan ay riday amba gantaalaha ay ridayna u ekayd mid ay ku dejinayso ummaddeeda markaa trumpna ma qaadayo maxaa yeelay jawaabtay bixiyeen oo ah mid aan cid maraykan ay waxba ku noqon burburna u geysan dhammaan xarumihii maraykanku ay ku lahaayeen bariga dhexe taasaa keentay markaa trumpna uu dib ballanqaadkiisii uu dib u dhigo oo allahuma salli calaa axad jawaabtan degdega ah ee cunaqabataynta u adeegsado mar haddii labada dhinacba ay u muuqdaan in dagaal aanay doonaynin ma jirtaa fursad ah in ay wada hadlaan way iman doontaa kolley iminka maadaama ummaddii iiraan bulshadeedii dowladdii markaa iiraan ay dejisay oo ay ku dejisay missileska ay u dirtay xarumihii ciidanka maraykanka xal u iman karaa oo dalal kale baa jiray oo heshiiskii beriga nuclearkana ka qayb ahaa oo Jarmalku ka mid yahay Ingiriisku ka mid yahay Ruushka quwadiha way soo dhex geli doonaan dawladda Carbeed baa siday dawladda Iiraan ay sheegaysay iyaguna ka codsaday in diblomaasiyad lagu dhameeyo kolley wada hadal uu iman doonaa xaaladuna san dagaal Allahumma salli ala marnaba ku soo dhicmaa maskaxda madaxdaas waynan arkaynaa insha Allah taala kolley wada hadal uu iman doonaa arrinkan iyo apology laga bixiyo tana way iman doontaa insha Allah taala si la filayo marka laga soo tago Iiraan inay ku hanjabtay in ay Mareykanka ay jawaab ka siin doonto dilkii General Qasem Soleimani waxyaabaha kale ee ay ka hadleen waxa kamid ahaa inay doonayaan in Mareykanku mandiqada bariga dhexe isaga huleelo
marka ma la dhihi karaa tallaabada xigtay Iiraan u hartay waa inay Mareykanku ku qasbaan inuu ka baxo bariga dhexe taa way isticmaali kartaa dowladda Iiraan waxay awood u leedahay maanta gobolkan inay dalal fara badan ay isticmaasho oo ay ka mid tahay dalka Ciraaq oo ay ka mid tahay dalal fara badan oo saameyn fara badan ku leeyihiin dadka madhab ahaan diintooda aaminsan shiicada firqadooda amba ay siyaasad fara badan ku leeyihiin laakiin kulay u malayn maayo dalalkaas laftigooda inay ka saari karaan Mareykanka ciidamada ka jooga halka amba saameyn weyn ciidamada jooga halkaas ay ku yeelan doonto Iiraan inay saarto sababta jawaabtii madaxweyne Trump in arkeen uu ka siiyay Ciraaq baarlamankeedii markii uu go'aansaday maalintii dhaweyd inay ka baxaan inuu cunaqabateyn adag u saari doono marka dal ku degdegi doona iyo Iiraan saameyn adag ku yeelan doonto bixitaanka ciidamada Mareykanka iyagoo iska baxa mooyaane mandaqadaas ma aha mid dhici karaysa Ciraaq waxay laftirkeeda hadda u muuqataa in Iiraan iyo Mareykanka ay gudihii wadankeeda ay ku dagaalamayaan iyaguna ay yihiin dhibanayaal aan labadii dhinacna hadda aanan qayb ka ahayn maxaa Ciraaq la gudbo Ciraaq horta laba daran mid dooro haddii ay Iiraan dooratana Mareykanku wuxuu madaxweynuhu Trump uu sheegay wuxuu saari doonaa cunaqabateyn aad u adag oo inuu weliba ka kabsan karayn Mareykanku wax badan buu ka caawiyaa Ciraaq militariga ka caawiyaa dhaqaalaha ka caawiyaa siyaasadda ka caawiyaa garab aad u muhiim u ahaa ilaa asaaskoodii xukuumaddan iyo xildhibaanadan in ku doodaya inay ka saaraan dalka Mareykanka marka suuragal maaha in dawladdu ay ku degdegto Mareykanka in la saaro oo haddii xagga raacdo ama go'aanka ay qaadato waxay noqonaysaa inay weydo garabkii caalamka dhan inay weydo because Mareykanku kaligii maaha wuxuu hormood ka yahay dalalka ka taageeray arrimaha gixisada dhaqaalaha siyaasadda iyo doorashooyinka dhammaan dalka Ciraaq haddii dadkan ay isku ka soo jeedaan madhabta shiicada oo haday raacaan iyaguna Allahumma salli ala laba daran mid doorey ku jiraan marka bal waxaan eegi doonaa siday sameeyaan xukuumadda Ciraaq laakiin saan ugu malaynayo aan filayana suuragal noqon mayso dowladda Ciraaq inay ka saarto ciidamada Mareykanka iyadoo waqtigana ISIS ay dib u soo noolaaso sida sheegaysa cilmi baarista imika ugu dambeeyay la sameeyay dib ay isku abaabulayaan ISIS-na suuragal maaha inay tallaabo ka qaadi karto marka waxay noqonaysaa baliyada lafteedu inay qayb ka noqoto isku soo dhaweynta iyo xalinta khilaafaadka u dhaxeeya labadan quwadood ee ku tirdamaya dalka Ciraaq laftigeeda kaasi wuxuu ahaa Mustafa Maxamuud Cabdilaahi Al-Khaliili oo siyaasadda xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramayey haddaba qalalaasaha bariga dhexe ka abuurmay raad ma ku yeelanaya isu socodka saliidda dunida iyo qiimaheeda labadaba su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere weydiiyey profesor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ها محمد waa ku yeeshay oo dee magaranaysaa dilidii la dilay ninkii Qaasim Sulaymaan ee ay dileen ciidamada Mareykanku markii uu horeeyay baa dadku adduunka wuxuu fasirtay inay u xoog leedhayaan waa kuwii magaranaysaa Iiraaniyiintuna dhaartay ee dhaarta Mareykan ay argoosanayaan waa kuwii dadkii markii la aasiyay xataa 50 qof dadka badan ay ku dhinteen magaranaysaa aaskii ku dhinteen dad badan markaa waxa la filayay in uu dabcan arrimo xoog leh ka dhacdo waxna way ka dhaceen oo qiimaha badroolku wuxuu kor u kacay markiiba dhowr maalmood ina dhaafay 5 maalmood hadda laga joogaa wuxuu magaranaysaa kor u dhaafay 10% ayuu kor u kacay markii hore saamiyada adduunka wax lagu gataana 2% ayay hoos u dhaceen oo uu saameeyay adduunka laakiin sidaad og tahay shalay wuxuu caadi buu ku soo noqdo markii weerarkii la filayay ee Iiraaniyiintu uu noqday dhowr iyo 10 madfac oo ay ku tuureen meel saldhigga la yidhaahdo Cayn al-Asad ee Mareykanka iyo mid kale ay ku tuureen oo dhaawac u geystay laakiin dhaawacii la filayay aanu gaarsiinin Mareykanku candhuutu dib u laqay oo wuxuu muujiyay inaanu ka argoosanaynin iyaguna Iiraaniyiintuna waxay yidhahdeen haddii aan lana soo faragelinin intaas ayaa ku filan taasi waxay keentay in shalay markaa qiimihii badroolku hoos u dhaco oo uu wax ku dhow wixii uu kacay uu hoos u dhaco saamiyadiina ay kor u soo kacaan laakiin ma dhammaanin xaaladdu ma dhammaanin waan gartay haddaynu si guud u eegno dalka Iiraan wuxuu ku yaalaa meesha ay saliidda caalamku soo marto waxaa la yidhi iyada iyo Cumaan waddo yaroo u dhaxaysa ayaa saliidda caalamku soo martaa bal markaa sharaxaad naga sii deegaankaas sax weeye waa runta oo waa meesha laga hadlayaa waa gacanka loo yaqaano Hormuz ama Strait of Hormuz la yiraahdo waa meel isku xidha ma garanaysaa dhinaca badda yar ballaceeduba uu yahayba 22 mayl waxa la yiraahdo ama ilaa 34 kilomitir uu yahay isagoo dhanba marka haddii ay isku dayaan Iiraaniyiintu oo dhinac ka ah hadday isku dayaan in arrintaa xidhaan waxa joogsanaya
boqolkiiba 21 saliidda marta ee saliidda adduunka laga isticmaalo oo lagu qiyaaso 100 milyan oo fuusto maalintii 20 milyan oo ka mid ah ayaa meesha ka baxaya haddii arrintaasi ay dhacdo. marka aad arrinta laga baqayay ee qiimuhu kor u kacaya fartana lagu hayaa waa taa weeyi. marka su-aashu waxay noqonaysaa sidee bay adduunka u saameynaysaa, sidee bay Maraykan u saameynaysaa, sidee bay iyaa ka faa'iidaysanaya, yaase khasaaraya ayay su-aasha ugu weyni ay noqonaysaa. waan gartay. marka waxaa la yidhi Maraykanka hadda waa kaalinta koowaad dhinaca soo saarka iyo dhoofinta saliidda caalamka. miyuus hubaayo saliiddii halkaa maraysay waxba uguma baahnaa? saad sheegtay yaa faa'iida yaa khasaara la yidhi. waayo dadka khasaaraya ugu badan wadamada khasaaraya ugu badan haddii qulqulatooyin ay ka dhacaan marinkaasi Hormuz. sax weeye maxamed, oo waa runtaa weeye oo Maraykanku wadamada wuxuu ku jiraa hadda dee saliidda soo saara oo iminka intuu soo dhoofinayo intuu dhoofiyo intuu soo dejiyo waxa badan baba inta uu dhoofiyo ayaa badan oo waa kuwa saliid ka hele meelahan saliidda cidhiidhiga ay yidhaahdaan oo meelo marka hore aan awood loo lahayn laga soo saaro baa hadda tiknolojiyadda waxay keenteen wax laga soo saari karo. laakiin marka isaga kambaniyada Maraykanku runtii waaba yar jeclaan lahay inuu qoomihu kor u kaco oo inkastoo shacabka ay dhibi doonto haddana iyagu way jeclaan lahaayeen inuu xukun waxbaaba u kordhi lahaaba iyaga. wadamada kale wuxuu kordhi lahaayeen waxaa ka mid a Canada iyo Netherlands baa ka mid a. waxaa ka mid a oo si xoog la uga faa'iidaya haddii arrintan ay socoto waddanka la yidhaahdo Ruushka ayaa aada uga faa'iidaya. waddanka Ruushka wuxuu uga faa'iidayaa weliba saliidda Maraykanka laga soo saaraa ma bedelayso saliidda laga soo saaro carabta, ma bedelayso cayliin oo isku nooc maaha. marka warshadaha hadda samaysana waxay sifeeyaan warshadaha batroolka laga keeno gacanka cadmeed ayay keenaan. taa waxaa soo saara marka waa Ruushka. marka Ruushku wuxuu ku dari karaa ilaa 500 milyan oo 500 kun oo foosto ayuu maalintii ku dari karaa intuu soo saaro hadda. marka isaga faa'iido ayay noqonaysaa. Canada laftigeedu wuxuuga faa'iido ayay u yar noqonaysaa. laakiin mid kale aan ku daro walaal maxamed oo ah cidda arrintan xasaradan aada uga faa'iidaysaa waa waddanka Shiinaha. waayo Maraykanku hadda wuxuu lumiyey laba dadkii uu gacanta ugu jiri jiray ka mid ahaayeen Ciraaq wuu lumiyey oo maalintii dhawday marka naga baxay lahaayeen Ciraaqiintu waxay isku halaynayaan waa Shiinaha oo hadda baacimshirga uu la leeyahay ay gaadhay $30 bilyan ay gaadhay sanadkii, isla markaana hadda durba geliyey $20 bilyan geliyey inuu warshado batrooliyo ku dhiso una ballan qaaday maalin dhaweed raad ay kala saxeexdeen in ma garanaysaa saliidooda uu kaga bedesho waxa uu dhisayo oo aanu lacag gaara weydiinin. sidaa darteed cidda runtii luminaysaa awooddii ay bariga dhexe ku lahayd waxa weeya Maraykanka. waad arkaysa wuu isgaabiya xitaa Sacuudigu oo arrintan markii ay dhacday kumuu faanfaanin markii Maraykanka loo geystay ma garanaysaa. waayo hadda way og yihiin in Maraykanku maadaama uu wax soo saarkiisu batay inuu xogaa dabada jeediyey ayay og yihiin. marka cidda ka faa'iidaysa arrintan waxay noqon doontaa waddanka Shiinaha oo aada u dhexgala bariga dhexe iyo waddanka Ruushka oo saliiddiisii ay suuq hesho. labadaas aada uga faa'iidaya. hadalkaasina waxa uu dambeeyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Maxamed Cabdi Sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.